waa maalin kale, waa samadal kale oo qurxinaysa isboortiska Soomaaliya. Horseed VS Dekedaha, Stadium Muqdisho, 22-ka July, maalin Khamiis ah, 9:30 daqiiqo. Kulan xiiso badan oo u dhexeeya labada naadi ayaa galabta ka baasmi doona, iyagoo qaar ka mid ah taageerayaasha labada dhinac ay haatanba sii carbuunteen kursiga ay ka fadhiisan lahaayeen garoonka qaadka weyn ee Stadium Muqdisho. Haddii aan hore u daawanay MCC iyo Horseed oo ay cadda taageerayaal aad u badan soo xaadireen, maantana waa mid kale oo go'aamin kara halka uu noqon karo horyaalka Soomaaliya. Inkastoo ayna ku guuleysanay Horseed xitaa haddii ay guul gaadho iyadoo laga warsugi karo kulanka MCC ay ciyaareyso. Labada naadi waxay yihiin kuwa hardan ku geli doona garoonka Stadium Muqdisho galabta. Dekeduhu wax loolan ah kuma jirto oo ah in ay horyaalkan ku guuleysato, waayo 23 dhibcood ayay kaalinta shanaad ee horyaalka la fadhisaa. Haddii xitaa ay badiso booska ay fadhiso hore ugama dhaqaaqi doonto. Ha yeeshee, tababaraha, xidigaha iyo maamulkuba waxay garoonka u soo galeen waa in ay guul gaaraan. Farxadda taageerayaasha Horseed waxay tahay inuu dib u soo laabtay nambarka 10aad xidiga dhaqaaqa dheer ninka lagu magacaabo Farxaan Xidig, kaasi oo dhaawac looga saaray kulankii ugu dambeeyay oo ay la ciyaarayeen MCC. Awoodda jir ahaaneed ee qadka dhexe ee Qubaye, difaaca Cumar Shariif iyo weliba isku xirka Ibrahim Ilyas guul ma siin doonaan xidigaha iyo si la mid ah naadiga Horseed. Waa su'aasha taagan una baahan in laga jawaabo ka hor kulanka. Ha yeeshee, waxaa la ogaan doonaa kadib kulanka markii uu soo dhamaado. Ha yeeshee, xidiga waaweyn oo uu ka mid yahay xidiga lagu magacaabo Anwar Said Ali ayay wajihi doonaan naadiga kubadda cagta ee Horseed. Wixii ka soo baxa waxaan arki doonaa kadib kulanka. Haddaba adiga maxay